magaalada laascaanood ee gobolka Sool oo waayadan ka jiray khilaaf huursanaa muddo oo si hoose ku socday ayaa hadda banaanka u soo baxay waxaana uu khilaafkan u dhaxeeya beelaha Jaamacsiyaad iyo Bahar Same. khilaafkan ayaa sababay in dhawaan magaalada laascaanood lagu toogto jaamac dheere oo ka soo jeeda beesha Bahar Same, kaas oo isaga iyo koox kale ay dilal badan u geysteen rag ka soo jeeda beesha Jaamacsiyaad. haddaba maxay tahay ujeedada loo leynayo dadka ka soo jeeda beesha Jaamacsiyaad? sidaad la socotaan dilalkan ayaa la xiriira sidii loo dabargoyn lahaa beesha Jaamacsiyaad oo siyaasad ahaan ku xooganayd dhinaca Somaliland. sidoo kale dilalka loo geysanayo waxgalka Jaamacsiyaad ayaa la xiriira sidii la isaga horkeeni lahaa beesha Jaamacsiyaad iyo xukuumadda Somaliland, taasoo muuqata inay xoogaa shaqaysay balse ay hadda ku baraarugeen dadka waxgaradka ah ee ka soo jeeda beesha Jaamacsiyaad. sidoo kale Jaamac Garaad Ismaaciil ayaa dhawaan cod u duubay ku sheegay inay taladii Jaamacsiyaad gacanta u gashay dadkii shirqoolka u maleegi jiray, isagoo intaas ku daray inaysan u adkaysan doonin in la dabargooyo beesha Jaamacsiyaad oo hadda ku socdo argoosi gooniya oo lagu beegsanayo dadka ka soo jeeda beesha Jaamacsiyaad. sidoo kale marar badan ayaa la sheegay inuu Jaamac Garaad Cali doonayo inuu burburiyo magaca iyo miisaanka magaalada Laascaanood, isagoo raba inay magaalada Saaxadheer noqoto caasimadda gobolka Sool. waxaana uu waayadan waday Jaamac Garaad Cali sidii loogu aqoonsan lahaa magaalada Saaxadheer caasimadda gobolka Sool, isagoo ay qadiyadan kala shaqaynayaan xubno ka tirsan maamulka Puntland iyo siyaasiyiin kale. waxaana uu ujeed ku yahay sidii caasimadda gobolka Sool loo dhaafin lahaa beesha Jaamacsiyaad oo u badan magaalada Laascaanood. inkastoo aysan qadiyadan Jaamac Garaad Cali shaqaynin, haddana wuxuu u muuqdaa nin xoogaa ku guulaystay aragtidiisa marka la eego barakaca shacab ee ka dhacay magaalada Laascaanood iyo colaadda ka socota 7 bilood Laascaanood ee xalkeedii la waayay. in magaalada Laascaanood ee gobolka Sool laga qaxo oo ay xaaladdu heerkan soo gaarto waa mid uu leeyahay Jaamac Garaad Cali oo ka biyo diiday xalkii iyo in la wada hadlo. sidoo kale xiisadda Laascaanood ayaan weli dhinac u dhicin iyadoo ay labada ciidan isor fadhiyaan halkaas oo ay saacadaha qaar ka dhacaan dagaalo goos ah oo u dhaxeeya ciidanka Somaliland iyo ciidamada huwanta ah ee dhufayska kaga jira gudaha magaalada Laascaanood. waxaana muuqata inay daba dheeraatay xiisadda Laascaanood oo aan la aqoon waqtiga ay dhammaan doonto. intaas ayaan ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.